daawada ka waran haddii adiga oo ku hadla hal luuqad oo keliya ama yaqaan hal luuqad oo keliya tiknoolajiyada cusub suurtagal kaaga dhigto inaad ku hadasho amba aad fahanto in ka badan 70 luuqadood. Shalay ayay ahayd marka shirkadda Google soo bandhigtay adeeg cusub oo kuu ogolaanaya inaad maqasho turjumaan toos ah adigoo xiran samaacadahaaga dhagaha ee caadiga ah. Adeegan ayay shirkaddu waxay ku soo dartay ama ku soo kordhisay barnaamijka aad wada taqaanaan ee Google Translate, wuxuuna kaa caawinayaa inaad fahanto hadalka luuqado kale ku baxaya isla waqtigaas ama si live ah. Tusaale waxaad joogtaa daawado maqaaxi ay ku qaxweynayaan dad ku hadlaya luuqadda Shiinaha, waxaadna rabtaa inaad fahanto sheekadooda. waxa kaliya aad furanaysaa Google Translate kadibna waxaad dooranaysaa Live Translate oo ah barnaamijka ay hadda shirkadda Google ku soo kordhisay barnaamijyadeeda. Markaas hadalka luuqadda Shiinaha ayaa daawada lagugu turjumi doonaa luuqadaada hooyo. Tanna waa mid ka mid ah horumarka xawliga ee tiknoolajiyadu ku socoto. barnaamijkan cusub ayaa hadda laga heli karaa 3 wadan ee kala ah Mareykanka, Mexico iyo Hindiya, wuxuuna ku turjumayaa ilaa 70 luuqadood. shirkadda Google-na waxay sheegtay inay gaarsiinayso wadamo fara badan sanadda 2026 ee foodeena ku soo haysa. fadlan haddii aad marka joogto daawada 3 wadan mid ka mid ah mobilkaaga update garee haddii aad arki weydo Live Translate oo ah barnaamijka cusub ee hadda Google soo kordhisay. adeegan cusub ee Google Translate wuxuu dadka ka caawinayaa inay si fudud isu fahmaan xitaa haddii ay ku hadlaan luuqado kala duwan, wuxuuna meesha ka saarayaa gabi ahaanba in la isxanto. fadlan commentiga nagula wadaag daawada 3 wadan mid ka mid ah haddii aad joogto oo barnaamijkan aad isticmaashay iyo wixii aad kala kulantay. haddii aadan nasiib u yeelan inaad joogto wadamada Mareykanka, Mexico iyo Hindiyana, fadlan la sii wadaag haddii aad taqaano qof ku sugan wadamada si uu barnaamijkan uga faa'iideysto.